guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Gebi ahaan dunidan dadka si kala duwan ayay waqtiga u arkaan. Dhaqamo qaar waxay aaminsan yihiin isdhexgal bulsho oo kala duwan isku waqti ay dhici karto. Dhaqamo kalena waxay aaminsan yihiin in isdhexgalka dadka kale ay tahay wax ka qiimo weyn hawshii kale ee la qaban lahaa. Meelo badan oo Maraykanka ka mid ah, dadka markiiba hal jadwal ayay u samaystaan howlaha ay qabanayaan iyo isdhexgalka bulshada. Tusaale ahaan, qofku wuxuu shaqeeyaa laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Wuxuu ballan takhtar la leeyahay saacadu markay tahay 4:15 galabnimo. Wuxuu qorsheynayaa inuu bangiwelihiisa ama bangaariyaha uu la kulmo saacadu markay tahay 6 galabnimo. Oo wuxuu ballan ula samaystay in asxaabta casho kula kulmo saacadu markay tahay 7 fiidnimo. Waxaa muhiim ah in isagu waqtiga loogu talagalay ku tago markasta uu ballamadan leeyahay. Saacadda ballanta la isu qabto oo waqtigeeda lagu tago waxay muujinaysaa istixgelin. Waqtigoodu qiimo ayuu ugu fadhiyaa. Halkan Maraykanka waxaan u fikirnaa in waqtiga lacag ku fadhiyo, oo annagu ma jecelin in waqti aan lumino. Waxaan isku daynaa in maalin kasta inta hawl ee suurtagal ah aan hal meel isugu geyno oo aan wada qabanno. Tusaale wanaagsan waxaa ah takhtarka. Wuxuu isku dayaa inuu la kulmo bukaan socod badan inta suuragal ah inta maalinta shaqada lagu jiro. Maxaa yeelay waxaa lacag lagu siiyaa inta bukaan socod ee uu la kulmo. Haddii qofka bukaan socodka uu ballantiisa ka soo daaho, takhtarka lacag ayaa ka lunta. Tan ayaa ah mid ka mid ah sababta ugu muhiimsan ee qofka bukaan socodka looga baahan yahay in ballanta takhtarka uu waqtigeeda ku tago. Dhaqanka Maraykanka, anshax ma ahan in qofka uu ku sii sugo. Haddii qof asxaab aanu nahay aan la ballamo 11 barqanimo qado, labadeennuba midba midka kale si ixtiraam uu u muujiyo, waxaanu soo xaadiraynaa 5 daqiiqo ka hor 11 barqanimo inta aan la gaarin. Shirkadaha dadka shaqaalaysiiya shaqaalahooda waxay ka fishaan in waqtiga loogu talagalay ku yimaadaan. Haddii qof shaqaalaha shaqada uu ku qoran yahay inuu bilaabo 7 subaxnimo ilaa 4 galabnimo, waxaa laga filayaa inay shaqada ay timaado inay diyaar tahay 5 daqiiqadood ka hor inta aan la gaarin 7. Shaqaalaha shaqada ka soo daaha waxaa dhici karta in shaqada laga ceyriyo. Si aad u barato sida jadwal loo samaysto oo ballanta loo xafido, waxaa dhici karta in qofka ay wax u tarto inuu bilaabo inuu ka fikiro dhammaan howlaha loo baahan yahay si ballantaas loo qabto. Tusaale ahaan, haddii John takhtar uu ballan la leeyahay berrito 10 subaxnimo, maxay yihiin tallaabooyinka looga baahan yahay inuu ka sii fikiro si markaa uu u tago waqtigii loogu talagalay ballantiisa? Waa inuu ka fikiraa waxa uu u baahan yahay inuu takhtarka weydiiyo oo su'aalihiisa meel ku qorto. Waa inuu sii qortaa dhammaan daawooyinka uu qaato. Su'aalihiisa iyo daawooyinka waa inuu ku qoraa oo uu geliyaa waalidkiisa ama boorsada jeebka. Waa inuu iska hubiyaa inuu sii wato kaarkiisa caymiska caafimaadka ama lacag aad iskaga bixiso qarashka dhakhtarka.
waa inuu go'aansadaa siduu ku tegi lahaa xafiiska takhtarka. Ma baabuurkiisa ayuu qaadan doonaa ama saaxiibkiisa ayaa weydiisan doonaa inuu wado? Waa inuu qiyaasaa inta ay ku qaadan doonto inuu ku tago xafiiska takhtarkiisa. Waa inuu xisaabta ku darsadaa inay dhici karto inuu baabuurtu ay xayirto. Waa inuu kasii fikiraa haddii looga baahnaan doono inuu buuxiyo waraaqo marka uu tago xafiiska takhtarka. Haddii ay kugu qaadan doonto 30 daqiiqadood inuu ku tago xafiiska takhtarka oo uu u baahnaan doono inuu waraaqaha buuxiyo marka uu meesha gaaro, John waa inuu qorshaystaa inuu gurigiisa ka tago ugu yaraan 9 subaxnimo. Taas waxay siinaysaa xoogaa daqiiqado uu waqti hore ku tago, xitaa haddii jidku mashquul yahay, oo warqadihiisa uu ku buuxiyo ka hor inta aan la gaarin ballanta oo ah 10 subaxnimo. John wuxuu samayn karaa wax isaga soo xasuusiya isaga oo boorsadiisa ama waaladka jeebka sii dhiganaya albaabka hore ee gurigiisa, ama aarmaha ayuu wuxuu ku buuxsanayaa 8:45 subaxnimo si ay u xasuusiyo in lagu dhow yahay waqtigii ballanta loo bixi lahaa. Sidoo kale, jadwalaynta door muhiim ah ayay ka ciyaartaa in ballamaha la xafido. Jadwalaynta oo hal maalin gudaheeda ballamo badan la isla samaysto ayaan suurtagelinayn in waqtigii loogu talagalay ballanta lagu tago. Ku bilow in ballamaha aad u baahan tahay sida ay u kala madan yihiin aad u kala hormariso. Tusaale ahaan, u tagid takhtar adiga oo xanuun lugta kaa hayo ayaa waxaa dhici karta inay kasii muhiimsan tahay inaad bangiga tagto si koonto cusub aad uga soo furato, ama in baabuurkaaga aad u qaado garaash si loo dayactiro. Ballanta kuugu muhiimsan horta samayso. Qiyaas inta waqti ee ay qaadan karto ballantaas. Kadib isa sii waqti kugu filan ee aad ku tagto ballantaada xigta. Muhiim ayay noqon doontaa in ballanta labaad waqtigeeda aad ku tagto, si xitaa maalin kale ayaa laga yaabaa inay kaaga fiican tahay in aad ballanta u qabsato. Xusuusnow, ballanta oo aad waqtigeeda ku tagto waxay muujinaysaa in dadka kale aad ixtiraam u hayso, oo waxay kaa caawinaysaa in waqtigaaga iyo lacagtaadaba aad ka faa'iidaysato. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.